waxaa nasiib daraa in maalin walba ay laba inan ama saddex inan ama ina kaliiba uu si joogto ah magac gub ugu sameeyo goobaha waxbarashada. waxaan haddaba doonayaa halkan inaan ka cadeeyo wasaaradda waxbarashadu maxay arrinkaa ka leedahay. kow waa marka koowaad horta dastuurkeennu wuxuu dhigayaa diinta qaranku inay tahay diinta islaamka oo aan diin kale Soomaaliland lagu faafin karin. dastuurkeenni baa dhigay waa qodobka 5aad faqradiisa koowaad. waxa kale oo dastuurkeennu waajibiyay xeerarka dalka waxa laga qaadanayaa shariicada islaamka. xeer kasta oo shariicada ka hor imanayana waa waxba kama jiraan. waa qodobka 5aad faqradiisa 2aad. qodobka 5aad faqradiisa 3aadna waxay ku waajibisay dawladda waxay oogaysaa shacairta diinta oo cid inooga lex jecel badan oo inooga ilaalin badan aanay jirin. ilaan ina yaro marba intuu soo tooso baraha bulshada hadal soo geliya diinteena inaga xigsan maayde cid ilaalisa waa inaga. waajib bay nagu tahay oo diinta laftigeeda bay nagu waajibisay inuu diinta ilaalino. diinta iyo dadnimada iyo dalka midna iib ma galo, gorgortana ma galo, isku rixrix iyo isku ceebayna ma galo. ninkii de isaga aqligiisa u taala ninkii isagu uu isticmaalaya mucaaradnimo iyo hebel ku xumee iyo heblaayo ku xumee ninkii uu isticmaalaya. ninka de waxyaabaha sheegaya odhanaya diin baa meel lagu dhigaa ama diin kala Soomaaliland lagu faafiya. horta isaga cadeynteedii laga rabaa. dawladda Soomaaliland sharciga waxbarashadana waxa ku yaala jeedada waxbarashadu waxa weeye in la dhiso bulsho ama ummad ku salaysan dhaqanka diinta islaamka aqoon ahaan anshax ahaan iyo edeb ahaanba. in kor loo qaado waa qodobka 5aad faqradiisa 9aad ee sharciga waxbarashada. in kor loo qaado barashada diinta islaamka ee heerarka waxbarashada. wasaaraddu iyadoo taa ka duulaysa waxa hore loo dhigi jiray weligeena qaanay waxaynu ku dhigan jirnay tarbiya diiniya. uulo maalintuu ilmaha yar bilaabo iyo ka hor iyo marka xanaanada ku jiraba wuxuu dhigtaa diinta islaamka ilaa iyo heerka ugu sareysa. waxaan doonaynaa inaynu halka dadweynaha uga cadayno dugsiyadeenu inay yihiin meelo diinta islaamka lagu barto ee aanay ahayn meel diin kale lagu barto. waxa cajiib ah inan kaliya ayaa 10kii sano ugu dambeeyay iskuul qura dusha ka saarna oo intaana laha war Soomaaliland kale miyay arkayn. wixii madaxweyne Soomaaliland soo maray barigu ninkaas bilaabay madaxweyne Siiraaya madaxweynaha madaxweyne Siiraaya ayaa arki waayay oo madaxweyne Musabixi baa arki waayay oo wasiiradii waxbarashada intaas oo dhan baa arki waayay inaga dhaadhicinayaan biya. wasiiradii awqaafta iyo shuyuukhda culimada ma isaga uga lex jeclo roon diinta qof buu ku xumaynaya ama cid weeriyeenaya. Soomaaliland barigii horena xaqdaradii waxa lagaga xoreeyay qori in makana xaqdarada iyo propagandada iyo beenta sharci in lagaga xoreeyo loo baahan yahay. marka way dhaaftay heerkii loo dul qaadanayay oo fariibo wuxuu sharciga ka helu leeyay. labada wasaaradood midna waxbarashada ay ka mas'uulka tahay midna ay wasaaradda diinta iyo awqaafka tahay waxay wada sameynayaan baaritaanka waxa ka soo baxa laamaha sharciga iyo cidda qosaysa loo gudbinaya. sharciga wixii lagu kala helu leeyahay ciddii wax lagu helo baana lagu qaadaya. wassalaamu calaykum.